dahabka iyo updatekiisa kusoo dhawaada. Dahabka qiimihiisa halkuu marayaa, dahabka qiimihiisana maxaa laga filayaa, ma qaaliyoobi doonaa mise waa raqiisi doonaa. Updateku waa kooban yahay, like, follow and share. Thank you. haddaba dahabka qiimihiisa waqti xadarkan wuxuu marayaa ku dhawaad $120. qiimo sare ayuu ka yimid dahabka $135 ayuu gaaray sidaad ogtihiinba. haddaba dahabka qiimaha uu gaari doono ugu badnaan hoos markuu u dhaco waa $110. waa markaasi realistiga aan u hadlayo. laakiinse dahabka in uu dib u qaaliyoobo riskiga ah ayaa soo saa'idayo. sababaha jirana waxa weeyaan, midda koowaad, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha China markii ay kulmeen waxaa la filayay in ay waxyaabo badan ka wada hadlaan, xaalka dunida ee hubaanti la'aantana uu ka baxo, maalgelintana ay dib u bilaabato. taasna ma aysan dhicinin. heshiis ku meel gaar ah ayay gaareen oo ilaa iyo bisha 4 ah. kadibna kulankooda markii uu soo dhammaadayna madaxweynaha Mareykanka wuxuu yidhi waa in la bilaabaa tijaabada hubka nuclear-ka. taasna waxa ay bixinaysaa sawir negative ah oo shirkooda ku saabsan. oo dunida meelo badan ayaa la isku haystaa, dhanka Ruushka ha ahaato, Ukraine, dhanka bariga dhexe, iyo Mareykanka oo waqti xaadirkan duulaan kusii ah Venezuela. sidaas daraaddeed weli dahabka waa maalgashiga saxda ah. dadkana inta badan oo private-ka xataa dahab ayay ku bedelanayaan lacagahooda kaashka, maadaama lacagaha waraaqada ah dunida ay waqti xadarka muuqato in laga sii aamin baxayo uuna dhammaaday. dunida halka dhinac laga xukumi jiray oo Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay hogaamin jireen. sidaas daraaddeed dahabka qiimihiisa waa ka wada hadalnay, waa idin sheega waa $120. dahabkana riskiga ah in uu dib u qaaliyoobo ayaa aad u badan. last update-ka siyaasadda ee dhaqaalaha dunida la soo. Thank you.